xukun baa maanta ka soo baxay waxaa eedeysnaa 15 qof ah oo ku jiro ninka khiyaamada sameeyey 14 qof ee kale siyaabo kala duwan bay u gacansiiyeen ninka dadkaas waxay ku eedeysnaan gacansiin laakiin iyagu lacagtii kuma eedeysneen siyaabaha kala duwan ee kiiska uga qayb qaateen baana xukunkooda ku salaysnaa qaarkood iminka midkoo kale wuxuu sameeyey gacanyar waas imikaadhada ayuu dadka uga soo iibinayay soomaalida maadaama ninka ajaanibka garanay qaabkaasuu gacansiiyey ninkaasi ninkan labaadoo kale wuxuu ahaa ninkii damiinka ahaa oo shirkad uu leeyahay oo ka shaqaysa macdanaha ayuu shaqaale ahaan uga ahaa isagaana wasaaradda iyo magaalada sahlaanta socdaalka kaba tegey oo damiinka ahaa qaabkaasuu isna uu gacansiiyey inuu khiyaamada sameeyo ninka saddexaad waxaa nin Chinese waa ninkii dalka markuu imanayay ninkan soo raacay dalka uu ka yimid dadkana ay ka wada sheekaysteen lacagtan maadaama khiyaamo ninkan u socday lacagaha elektarooniga dalku soo u shaqeeyo warbixinta ka siiyey kadibna uu dhacan u geystay midka wuxuu ahaa dadka intooda dadka waxay u badnaayeen dadkii dadka soo ururinayay wacyigelinta sameynayay awareness dadka u sameynayay in barnaamijkan uu ka soo dadka sameynayay kalsoonida dadka geliyey ayay ahayn markaa xukunsanayaasha ciqaabo kala duwan baa soo baxay qaarkood waxaa lagu xukumay ilaa 2 sano 1 sano sanad iyo 6 bilood intaas ciqaabahooda u dhexeeyeen eedeysanayaashan marka laga tago 5 qof 15 qof 10 qof maqanay hayeen iyagoo dibadda maqanaa baa la xukumay waana dee marka lasoo qabto ciqaabtoodu bilaamaysaa kuwana xilligii lasoo xiray ciqaabtoodu bilaabantay kiiska noocaas saas u dhacay sanad kasta sheekooyin sidan oo kale ah way soo noqdaan magacyo cusub khiyaano isku mid ah su-aashu waxay tahay sidee loo joojin karaa jawaabtu waa muwaadin aad adigu fahanto in waxani uu yahay tuugaad lacagtaadii u dhiibanayso ha aaminin lacag degdeg ah baadh faham ka hor intaanad maalgelin arrin waa madasha wacyigiska bulshada